wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalex Isniintii shalayto xoogagga isbahaysiga Carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay Xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan, waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyey geerida Saalex ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku naf waayeen dad boqolaala. Carabtu waxa ay doonayaan in naxdinta ka dhalatay dhimashada Saalex ay kaga faa'iideystaan jebinta maleeshiyaadka Shiicada ah ee ay Iiraan taageerto, iyagoo xusulduub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saalex ku kasban lahaayeen. xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo, waxaanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda Xuutiyiinta. waxaa la gaaray waqtigii beesha caalamka gaar ahaan kuwooda saamaynta leh ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka Xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi madow. wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalex oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo markiisii ugu horreysay loo oggolaaday in uu warbaahinta ka hadlo ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono Xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalex oo markii uu dagaalka Yemen qarxayay ahaa danjiraha Yemen Imaaraadka u fadhiya ayaa horay u ahaa taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeyay Yemen ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed waxa uu ku eedeeyey Iiraan dilka aabihii, isagoo u goodinayana waxa uu yidhi: aniga ayaa dagaalka hogaamin doona ilaa ay inta Xuutiga ugu dambeeya laga eriyo Yemen. dhiigga aabbahay waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan, waxaana taageerayaasha aabbahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee Xuutiyiinta ka dhanka ah. dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalex. horay ayaa loogu eedeeyey in ay ku lug leedahay qaarajinta hogaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Cali Jacfari ayaa sheegay in Saalex uu isku dayay inuu afgembiyo Xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. Jacfari oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi: afgembigii ka dhanka ahaa jaamacadda Ansarallah gurigiisa ayaa looga takhalusay. Sacuudigana iyagoo amarka iyo taageerada Maraykanka ambaqaadaya ayay kala daadinayaan oo kala furfurayaan muslimiinta, waxaana Sacuudiyiintu ay isku dayaan inay fadqalalo ammaan ka abuuraan gobolka. hogaamiyaha kooxda Ansarallah ee Xuutiga ah Cabdilmalik al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalex kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yemen, isagoo shacabka ugu hambaliyeeyey geerida hogaamiyahaasi. taageerayaasha Xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhoweeyey qaarajinta Saalex, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga Carabta ee uu Sacuudigu hogaamiyo. dadka way u riyaaqeen warka sheegayay inuu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. wuxuu isku dayay inuu fawdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana dalool u furo. dabcan Cali Cabdalla Saalex waxa uu ahaa warqaddii ugu dambeysay ee isbahaysiga Carabta. dadka siyaasadda dunida Carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalex la samaystay Xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambaysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu uga gudbayey. sidaasina waxaa qaba aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda. marka inta badan waxaa la aaminsan yahay isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada Abuubayka Xuutiyiinta waxay ahayd isbahaysi istaraatiijig ma ahayn, wuxuu ahaa mid tactic ayuu ahaa. saas darteed muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo. markii ay arrintaasi soo dhamaatay ama uu dareemay in ay timiga ama duruufihii gobolka ka jireen ay isbedeleen, isaga wuxuu arkay fursaddii ugu fiicneed inay tahay hadda inuu ka takhaluso iyaga laftoodii, isagan uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hogaamiyo. marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si kumeel gaar ama taasika ah, midba midka kale wuxuu doonaya inuu meesha ka bixiyo. marka su-aasha ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona. marka waxaa muuqata in Xuutiyiinta ay hadda
noqdeen qolyaha ugu horeysa ee shaqooyinka ku guuleystay. Cali Cabdalla Saalex waxa uu Yemen ku lahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhalinyaro, waxaana dhici karta sida dadka arrimaha Yemen u dhuundaloola ay rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka Xuutiyiinta.